barnaamijka DV Lottery DV 2026 2026 lahaa laakiin brio furmaya bri October labadeeda barnaamijka lotteryga waqti nasiibka Mareykanka lagu imaado way furmaya sanadkan qayladii iyo wixii sanadii hore ahwadna waa yareenay maadaama meesha ay soo gashay armi Itoobiyaanka marka waxaan horta dhalinyarada barnaamijkan xiiseeyo ina dib idin xasuusiyo barnaamijka lotteryga wuxuu kamid yahay barnaamijyada ugu sahlan ee dalka Mareykanka ku imaan kartid ayuu kamid yahay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka loo yaqaan State Department-ga ayaa ansixisay tan iyo 1995 ugu yaraan 1 milyan iyo bar qof ku yimid Europe Asia Africa meel walba laga imaaday su'aalooyin fara badan soo baxay qofka derbiga soo booday Soomaaliga ee Mareykanka joogo hadda wali sharciga raadinayo ma xareysan karaa barnaamijka lotteryga maya ka sax wax ma xareysan hadduu ku soo baxtaa kuma siinayaan maxay yeelay waxay ku leeyihiin qaabka ku imaataa qaldan marka dalka dib ugu laabay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliya joogto ee daawanayso ayaga ma xareysan karaan dhalinyarada Kenya joogto ee Soomaalida ayagana ma xareysan karaan waa ha Soomaaliya wuxuu kamid yahay wadamada eligibility-gooda wali uu jiro ayuu kamid yahay Soomaaliya dad fara badan uma soo dirsanin dalka Mareykanka Nigeria ogow waa laga saaray liiska maxaa yeelay dad fara badan oo lottery ku yimid oo Nigeria ka imaadaan jiro markii liiska waa laga saaray Hindiya liiska waa laga saaray Shiine liiska waa laga saaray Ingiriiska liiska waa laga saaray Kanadiyaanka liiska waa laga saaray dadkaas hadda idin soo sheegay dalalkaas dad fara badan ay soo dirsadeen Soomaali waxay jirto 435 gaarayso sanadkii 2022 barnaamijka lottery ku guuleysatay dalka Mareykanka yimid kaalay adi meelay joogaan bal sheeg waa mashquul gaarigooda ay wadaan dad xamaalnaayo shaqaysanaya waa TikTok iyo qeeladani kuma dhex arkaysay Soomaali 900 gaarayso inta u dhaxaysay maxaa la dhigi jiray 2021 ilaa 2023 ayagana visa helay ku yimid dalka Mareykanka barnaamijka lotteryga dalkeena la joogaan dhinaca ugu jiraan marka dadka imaado aad u tir badan yihiin waliba hadda kan kula hadlaayo Soomaaliga boy oo aniga ah barnaamijka lotteryga ku imid qariiqdeeda dhalinyarada qaar waa ugu sheekeeyay 2013 ku guuleysan oo keen joogo 2014 waa ku imid marka dhalinyarooy horta biri hadduu Ilaahay idmo mid ii sameeya walaalayaal xareesta waxaan waa free lacag ugu ma xirno sawir fiican iPhone hadaa haysatid hadda waa taqaan qof weenaata ma ku sharxeen ciyaal amal inta ku soo risaan kuma sharxeeno sawirka headshot-ka loo yaqaano garbaha inta ka bilaaw ilaa madaxaada sawir fiican oo macquul ah walaalow gal sawir fiican oo macquul ah oo indhahaada ay furan yihiin hadoo la cadeeyeen waa adi waxa riddu akaaw laakiin sawir fiican oo background uu cadaan yahay oo macquul ah oo headshot ah gal waliba website-ka ku xariisanaysid wuxuu leeyahay qayb baroowa ah oo sawirkaas in la aqbalayo in kale asagana fiiri ee barooway website-ka lagu galaayo iyo afaarihii oo dhan waa idin hayaa qaybta dambe ku sharxaya laakiin isuga waxaan rabaa inaan idin sheego barnaamijka lotteryga xariisashadiisa wax geedkii maxaa lahaa oo mashquula ee kugu fadhiisa ma jirto yani waqti kaama qaadanayo wax dhan waa 5 minute waa inta videogan daawanaysid be marka fariiso laptopkaada kala furo dadka aan laptopka haysanin mobilada haysto waa isticmaali karaan laakiin ani ahaan taladeedu waxa waaye computer isticmaal maxay asaa ku sahlan waxa markaa soo upload gareynaysid iyo wixii say wax kaaga dhuuntaana yani qaldan marka magacyadaada magaca hooyada firi mujada meeshan maxaa ku qoran waxaan waa screenshot ka soo qaaday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka meeshaas yar ee ku qoran mujada dvprogram.state.gov intaas Google ku qor dvprogram.state.gov qor markaa qortid kale ku dhufo uu ku soo baxaya uu ku furmaa markuu furmo magacaada ma ku gambinayo magaca aabaha magaca awoowaha ciyaal hadaa dhashay ayagana meesha kale ku sii xaaskaada hadaa xaas qabtid geli sii soco dugsi sare iyo afaarahaas markii la gaaro Soomaalidu way naxaan for now do not worry hadeertaan ha welwel markii qaybta dugsiga sare iyo waxaas la gaaro dugsi sare ka dhigo kale ku sii xitaa hadaan dugsi sare dhameenin dugsi sare iska sii door anaa ku dhahay waxaan oo dhan markaas select noqotid oo guuleysatid agada laga xalin doona laakiin hadeertaan magacaado saxda ah da'da saxda ah dhalatay iyo dugsi sare ama hadaa jaamacad dhameysay qaybta jaamacadda ku dhufo qaybta jaamacadda college degree ee ku qoran tahay ku dhufo ama dugsi sare adi labadaas midood ku dhufo ka hoosaas kaga dhufan hadhow markuu ku soo baxo barnaamijka wixii gadaal documenti waxaas gadaal laga dabari karaa
laakiin walaalayaalow barnaamijkan beri hadduu ilaahay idmo xareesta beri keliya kuma eko beri dambe waa furo oo waa xareesa adi bisha soo socoto dhan barnaamijka waa xareesa kartaa sawirka iga soo habay dhalinyaro oo $3 $4 $5 la siiyaa jirto oo sawir fiican oo lottery ka qaadayo kuwaas ayagana waa ku xareesan kartaa ma fahanto waa haddaa awoodid waa haddaadan awoodin sawirka iPhone-ka caadi iskaga qaad habay qaybta baroowada gay waxaan niyo wax dhib badan ma aha muuqaaladeeda hore ee sanadkii hore haddaartid hoos u raac ayadoo faahfaahsan aad soo geliya haddii inaad ku soo celiyo wax micno ee leedahay male marka nasiib wanaagsan idin leeyahay qaar sharafta leh barnaamijka lotteryga DV 2026 galayso waxaan leeyahay berito haddii aad mashquul tahay waxba ha degdegta iska daa Soomaalida waxyaabaha faraha badan rejected loo dhaho waxyaabahaas ka mid ah waa degdegaysaa information aan qaldamaayo waa lagugu qabanayaa inaad been sheegtaa loo maleynaa sidaas awgeed red flag aan noqonaysaa marka stage si maskixiyan ah oo macquul ah waxaad u gal good luck